بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان صاحب يلكسو دوادا برنامج كيني محوها مانقدل oo aad nagu barateen inaynu ku wada gorfeyno isla markaan ku kala faa'iideysano aaraada iyo afkaarta la xiriira buugaagta ay kooxda maangodol soo wada akhristaan isla markaan ay jecel yihiin inay la wadaagaan saaxiibadooda ku xiran mar walba xalqadani waa xalqadii 16aad ee barnaamijka waana xalqadii afraad ee kalkan aynu ku jirno waxa ila fadhiyo oo maanta buuga aynu wada gorfeyn doonaa saaxiibadeedii liibaan oo dhinaca midiga fadhiya iyo guuleed oo dhinaca bidixga fadhiya buuga maanta aanu isleenahay hadii la hayraado dush aad isha marisaan waxa weeye waa buuga magaciisa la yiraahdo fahanka dawladnimo oo qoray qoraaga reer Morocco ee Abdallah Al-Arawi qoraagu waxa weeye wuxuu ku dhashay wadanka Morocco magaalada Azmur 1933 halkaas ku koray waxbarashadiisa ku qaatay intii hore markii dambana Faransiiska ee jaamacadda Sorbonne ilaa uu qaadanayay PhD diisa xilli hore oo ku beegan 1976 intaana wuxuu ku dhex jiray qoraalka muxuu ahaa iyo waxbarista iyo alifida kutubta kala duwan waxa weeye uu ka yahay bara jaamacadeed kulliyadda dhaqanka ee jaamacadda Rabaad sidoo kale qoraagu wuxuu leeyahay silsilad kutub fara badan oo kitaabkana ka mid yahay oo fahanka xorriyadda fahanka ideolojiyadda iyo fahanka dawladnimo oo ka maanta noqonay kutub kale oo aad iyo aad u fara badan intaynaan sii dhexgelin mowduuca kitaabka iyo fikradda uu xambaarsan yahay iyo sida aynu bulshadeena ugu dabaqi karno si faa'iido aynu uga baxno inagu waxaan soo dhaweynayaa injineer Guuleed oo aan ku bilaabayno bal inuu nala wadaago kitaabka iyo guud ahaan qoraaga hordhacayro kooban ku saabsan intii uu ku sii darayo inta aan sheegnay iyo sidoo kale bal inuu xooga saaro meelaha uu isleeyahay buugu aad buu ugu xooganaa marka Guuleed adan ku deynayay soo dhaw injineer بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم injineer Fataaxad buu mahadsan yahay waxaan salaamayaa baahda kale ee maangodol liibaan baa inoo jooga dawadayaal idinkuna aad baad u salaamantiin sida Cabdi Fataax sheegay kitaabkan waxa weeyaan kitaab ka hadlaya fahanka dawladnimo waxaana qoray Professor Abdallah Al-Arawi kitaabku wuxuu guud ahaan uu ka kooban yahay 7 fasal fasaladaasi haddii aan dul maro aad waxaad moodaa labada fasal hore inuu ku naaqishay mafhuumka dawladeed ee ay qabaan filosoofiyadii hore ee maxay galbeedku runtii dadda waxaad moodaa Abdallah Al-Arawi nin aad ugu taasuray ama waxa weeyaan raadiin badan ay ku leedahay tacliinta iyo aqoonta galbeedku fususha waxa ka mid ah nadariyada iyo aragtida dawladnimo ee wanaagsan oo kale waxa ka mid ah maxay ahayd in nadariyaadkii iyo aragtiyihii ay qabeen filosoofiyadii iyo in la naaqsho oo la naqdiyo waxa weeyaan in la maxay la gorfeeyo si looga soo saaro wax faa'iido leh wixii waxa weeyaan ay dadkaas u cunto mooyeen ay waxa weeyaan deedifeeyaan saddexaad ee maanta aan aad u rakisi doono oo ah maxay ahayd takawul dawla waa fasalka saddexaad ama chapter saddexaad waxa weeyaan samaysanka iyo oonka dawladnimo chapterka afraad waxa weeyaan dawladdii soo jireenkeeda ee Carbeed ayuu isaguna maxay ahayd uu naaqashaya oo in badan runtii ka hadli doona taasna waxaan filayaa liibaan baa isaguna chapterka soo qaatay uu maxay ahayd gorfeyn doona insha Allah talixaad fasalka lixaad ee buuga ku qoran waxa weeyaan waaqica maanta dawladda Carbeed ee nooshahay haddii ay tahay tii soo jireenka chapterka dambeeyna waxa weeyaan waaqica iyo dawladda maanta jirta ee Carbeed ama guud ahaan badda Carab haddii la leeyana yani islaam baa dee laga waramaya chapterka saddexaad waxa weeyaan waa kala taga iyo waxa weeyaan maanta kala taga maanta jira mufaaraqa iyo kala taga jira maanta haddaba haddii aan ku soo noqdo takawul dawla kitaabku wuxuu raacayaa manhaj la yiraahdo manhaj al-wasfi al-wad'ani yani wadciga maanta jooga oo waxa weeyaan inta la derso dawladdu maanta maxay tahay iyadoo laga tagayo sakhrifada iyo maaragtay decorationka guud loo daadegayo unugyada hoose ay ka kooban tahay inta la derso nataaj lagala baxo dabeetana dib loogu noqonayo taariikh hore oo dawladii hore ee jiray
laga soo darsayay markaa wadciga taasaa laga wadaa manhajkaas u raacaya manhajkaasna runtii waxaa aad u dabaqay oo de waxa weeyaan Frederick Angeles oo ninkii Karl Marx saaxiibka hayeen ayaa manhaj ka keenay taasina waxa weeyaan markii laga gudbay in falsafa oo waxa weeyaan iyo hadal de sii deysan oon waxa weeyaan de dowladda lagaga sheekeyn jiray laakiin isagu daraasad rasmiya oo waaqaca jirta ayuu darsay dabeetana dib u celiyay natiijadii uu helay taasi waxa weeyaan hadda wuxuu leeyahay haddaan bilaabo say dowlad ku asaasanta dowlad waxay ku asaasantaa buu leeyahay marka hore horta waxaa dhacaya in nidaamkii kolleyba ilaahay dadka meel buu ku abuuray dee dadka hadday meel ku abuuran yihiin qabaa'il iyo waxa weeyaan iyo qaraabo iyo xidid iyo waxa weeyaan iyo dee maaragtay ayaa isku keenaya xidhiidh bulsho ayaa isku keenaya oo qabali ah xidhiidhkii bulsho ee qabaligaha dadkii waxa weeyaan waxa dee duruuftii awgeed waxay u beddeshay inay noqoto nidaam dowlad iyo waddan ay isku beddelay taasi waxay keenaysaa dad aan isku maslaxad hayn inay meel wada degaan haddii dad isku maslaxad aan hayn ama aan nidaam ama xidhiidh aan dee waxa weeyaan qabali aanu midaynayn waxaa loo baahan doonaa dadkii inay amnigoodii ilaan qofkan waa qof ka soo baxay meel uu dee u ahayd gaadh ama gabaad u ahayd gabaadkiisii qofka haddii soo baxay waa inuu gabaad kale uu helo gabaadka kale uu qofkii ay helaya nidaamkan cusub u soo baxay wuxuu noqonayaa maxay ahayd in group la magacaabo groupkaasi waxa weeyaan shurda ama boolis iyo military ammaanka ilaaliya ammaankii si loo ilaaliyo waa in la helo maxay ahayd dee waa in qarash ayaa loo baahnaanaya qarash si loo helana waa in maxay ahayd cashuur iyo nidaam maaliyadeed la abuuro nidaam maaliyadeed haddii la abuurayana waa in qaanuun ilaaliya nidaam ilaaliya loo sameeyo nidaamkiina dabcan dad baa isku xidhaya dadkaas isku xidhaya waxay noqonayaan dee masalan waa mas-uuliyiinta xukuumaddana dad baa baawar yeelan doona dabiicat alxaal oo dee yani nolosha saas inay dadka qaar baawar ay ka dhex yeeshaan gruubkii dabeetana ay ka dhex baxaan saasay dowlad ku samaysanta dabeetana waxay noqonaysaa dee dabcan gruubkaasina waa nidaamka dabiiciga ee dowladda ay u samaysanto haddaba waxaa jira haddii aan ka hadlalno maraaxisha ay soo martay dee samaysanka iyo unkanka dowladeed weliba culimada bulshadu 4 kooxood ayay yihiin taasi ta hore waa tan aan iminka soo warramay waa ta Angeles uu qababa Angeles wuxuu qabaa inay dadkii deegaanka dadkii reer guraagaha ay noqdeen deegaan taasina runtii waxa weeyaan waa tusaalaha cad ee Soomaalida dowladeedo kale de sheegaya dad ruuxala oo reer guraaya ayaa waxa weeyaan degay oo waxa weeyaan samaystay de maamul ama caaqilbaha u sareeyo ama suldaana u sareeyo ama garaadha u sareeyo dabcan markay degaan qof kasta waxa weeye malakiye khaas ah waxa hanti in qof kasta uu samaysto ama dhul yeesho xoolaha yeesho xoolihiisii dhul ayuu goynayaa kadib waxay maraysaa qawaaniin iyo shuruuc la kala qorto xeerar la samaysto taas waa marxaladda koobaad ee dowladii ay ku samaysanto waxa soo way jirtay oo waxa weeyaan dabcan taas waa marxalad hore oo 15 qarni sida kitaabku qorayo 15 qarni qabla al-milaad ciise ka hor dhalashadiisii ayay dowladda noocani ay de wax weeyaan astaamaheeda ayaa nooca ahaa astaamaheeda ku ahaa marxalad dhaweyd baynu inagu noolahay inagu nooca tusaalahaasi dad kale waxa laga yaabaa inaan u muuqanba qaabka ay u samaysantay laakiin naga waa waadixba tan kale dowladda marxaladda labaad ee namuud iyo tusaalaha labaad ee culimadu ay qabaan in dowladdu ay soo martay taariikh ahaan waxa weeyaan dowladda cusub ee uu ka sheekeynayo taa waxa qaba Karl Marx wuxuu ka waramayaa xilligii kacaanka warshadaha iyo xilligii kacdoonkii Faransiiska labada dowladii xilliga jirtay ee asaasada xilliga asaaskeedu uu ahaa taa waxa la yiraahdo buleed dowladii waxa weeyaan cusbeed ama xadiiska ahayd to labaad ba soo socota iyaduna ta saddexaad ee namuudiska saddexaad waxa weeyaan dowladii warshadaha kacdoonkii warshadaha dabcan labadaasi marka dambe uu israacin doonaayo dowladda cusub iyo dowladda kacaanka warshaduhu waa laba isku mid ah runtii laakiin de waxa weeyaan laba nin baa wax kala qabay ka hore Karl Marx
ayaa furfurkeediyo lahaa dee maaragtay fikraddeeda. Haddaba wuxuu leeyahay tan dambe ee warshaduhu wax soo saarkii warshaduhu wuxuu ka xoog batay iyo waxa weeyaan dadku u adeegaya waxay ka xoog bateen fallaaxiintii ee beeraleydii oo xaggii beeraha focuska laga saarayay iyo xoogga waxaa imika waxaa la saaray soo saarka warshadeynta iyo warshadaha. namuudajka iyo tusaalaha afaraad ee dambe ee ugu dambeeya ee yacni uu leeyahay taariikh ahaan ugu dambeeyey waan sheegi doonaa qaabka maanta jire uu isagu leeyahay laakiin taariikh ahaan ugu dambeeyey wax weyn ka ay isa soo dhex galeen ama falgal weyn ay sameeyeen cilmigii iyo warshadihii kaasi markaa waxa isagana dee ifafaalihiisu wuxuu yahay iyo dee waxyaalaha dhidibada dee u ahi warisgaarsiinta horta ah iyo waxa weeyaan nidaamka waxa weeyaan lagu ilaalinayo shaqaalaha oo ah yani waxaan ka wadaa khadamaadkii iyo servicekii ayaa ka batay wax soo saarkii productionkii caadiga ahaa iyo masalan warshado ama beera ahaa waxaa ka xoog batayba maxay ahaydey servicekii waxaanad ogta markaa waxa uu isweydiinayaa kitaabku wuxuu leeyahy bal haddaba haddii ay tahay soo jireenka taariikheed tusaalayaashii jiray dowladnimo hadduu noocaa yahay haddaba dowladda maanta taagan ee maanta jirta adduunyada afartaa talow keebay noqonaysaa oo waa ninkanku leh isagu maanta wuxuu la darsayaa marka hore dowladdan maanta jirta dabeetana dib baa loogu noqonayaa taariikhaan baa dib loogu noqonaya markaa isagu wuxuu yidhi dowladda lama odhan karo maanta dowladda jirta dee lama odhan karo taasunba ayuunba namuudaj iyo tusaalaha afartaa tusaalean soo sheegnay midun bay ka lama odhan karo runtii ayuun baana noqon karo lama odhan karo laakiin labadan ah dowladdan cusub iyo dowladda warshadaha labadaasaa la odhan karaa dowladaha badankooda maanta adduunka jira labadaasay yihiin sababtuna waxa weeyaan dowladaha maanta jira ama waa dowlado dee xagga warshada aada ugu horumaray ama waa dowlado warshadeynta ku soo socda waana dhabo dee yurub oo dhan maanta waa dowlado wax soo saar xagga warshada aada ugu horumaray africa maanta wadiga arkayo horumarka ugu badan wax sameynaya dowladaha wax soo saarka warshadeed leh ayaa sameynaya dee runtii tusaalaha ugu dambeeyan lahaa waa tusaalaha serviceka ka batay wax soo saarkii kale waa dowladaha wuxuu leeyahy waa kuwa ugu awoodda badanba laakiin tiradoodu way yartahay tiradoodu way yartahay wax ka wada masalan dee waxaa la odhan karaa waa qarbiga weliba kuwa sii horumarsan ayay dowladdaasoo kale tusaale u tahay waxa weeyaan dee nimanka de xoogga waxa weeyaan uu maanta de warisgaarsiinta iyo aqoonta isku xidhka aqoonta iyo warshaduhu uu de saldhigay waa waddamada dee masalan maraykan iyo canada iyo yurubta galbeed waa waddamo yar intay dee uu tusaalahaas koobsanayo laakiin dowladaha soo hadhay ee adduunka labada tusaale ee kale ayay soo dhex gelayaan haddaba dee wuxuu leeyahay waxaana jira runtii haddii marka uu dee nin aqoon-yahani uu naaqishayo ama uu falanqeynayo dowladisay ku samaysantay iyo dowladda uu isagu markaa uu de ka warramayo waxa raadeynaya biicada uu ku nool yahay masalan mikafili ninkii la odhan jiray wuxuu leeyahy talyaanigu markaa isagoo arkay faransiiska iyo ingiriiska dee waxa weye kacdoonadii ka dhacay iyo dee waxyaalaha ay sameeyeen masalan karaamadii qofka in kor loo soo qaaday inta nidaamkii wanaagsanaaday dhaqan dhaqaalihii dee uu kobcay laakiin talyaaniga aanay qodobada noocaasi aynay weli ka hirgelin ayuu leeyahy weli maxay talyaanigii mabuu noqonba dowlad casri saasoo kale waxaa qaba hegel ninkii la odhan jiray jarmalka ee filosoofka oo le isaguna niyow ilaa hadda jarmalku kama gudbinba imbaraadoriyadii isagoo laftigiisuna dee arkaya ama dee waxa weeyaan waxyaalahu gundhigu ka dhigayo dee masalan kacaankan faransiiska iyo ingiriiska isagoo de gundhiga waxa ka suuro galay iyo de wanaaga isagoo gundhigu uga dhigayo taxliilkiisa iyo furfuritaankiisa uu ku sameynayo dee nadariyadiisa ayuu leeyahay jarmalku weli imbaraadoriyadiiba kama soo bixino dowlad casriya mabuu noqonba haddaba wuxuu leeyahay kitaabku wuxuu isbarbar dhigayaa wuxuu leeyahay haddii maanta aad doonaysid
inaad daraasad samaysid taariikhiya waa inaad samaysid laba group labadaa group waxa weeyaan laba group oo sifooyin ah labadaa group waxa weeyaan masalan waa inaad sheegto sida quruxda badnayd ee iijaabiga ahayd ee wanaagga ee saxda ahayd iyo sida dee aan wanaagsaneyn silbiga aan quruxda badnayn inaad labadaaba aad marka aad isbarbar dhigtid si oo adigoo eegaya dee waxaad iskaga barbar dhigaysid masalan wuxuu leeyahay Napoleon oo dee waxyaalaha ka goosteena dee Faransiisku kacdoonkoodiiya Napoleon wuxuu sameeyey ciidan waxa weyn wadaniga oo waxa weeye shacabku uu raacsan yahay oo dimuqraadiya xagga ciidankii hore ee dee boqortooyooyinkii reer Yurub ka jiray oo iska ahaa mid xirafiya oo iyaga oo dad ay boqortooyada ay samaysatay masaalixdeedana ilaaliya shacabkana shaqo ku lahayn oo dee shacabka cadaawad buu qababa oo waxa weeyaan dee adeecidiisa iyo cidda uu hayo dee wanaaguna ay tahay boqortooyada marka labadaas kale wuxuu leeyahay dee markaas barbar dhigto dee ayaad garan kartaa dee wanaagga dowladnimadaasi ay dee ususka dee u ahaa runtii waxa weeyaan anigu intaasaan kusoo koobi lahaa dee waxa weeyaan samaysanka dowladnimo anigoo dee eegaya maxay ahayday bal wax inta dambana insha allahu tacaala waxaan dhigan doonaa marka ay noo bilaabaan niqaashka dambe iyo diiban marka soo galo insha allah aad iyo aad baad mahadsantahay injineer Guuleed sida fiican ee aad usoo koobtay akhriskaaga guud ee buugga runtii waan kaaga mahadnaqayaa mawduuca aad xoogga saartay ee uu qoraagu kaga hadlayay unkanka dowladnimo iyo samaysanka dowladnimo iyo qaababkii kala duwan ee ay muxuu ahaa dowladuhu usoo unkamayeen sida qoraagu dabcan ugu dhigayay liban soo dhawow marka hore waxaan filayaa waxa weeye adiga laftaada buugga aad iyo aad baad soo akhriday bal ku soo dhawow adigoo guud ahaan xoogga saaray akhriskaaga guud ee kitaabka aynu maanta la fagurayno sidoo kalena bal waxaad yar xoogga yar saartaa dowladda soo jireenka ahayd ee dowladaha muslimka ah ka hana qaaday gaar ahaan dhulka carbeed iyo sida uu qoraagu u dhigayo iyo siyaabaha inaga mararka qaarkood xataa ay noo saameyn karayso aad baad u mahadsantahay Caftax bismillaahir rahmaanir rahiim horta buuggu waa buuggan uu doctorka qoray waa buug waa cilmi baadhis uu ku daraaseynayay sooyaalka dowladeed guud ahaan tii hore ee ka hana qaaday wadamada reer galbeedka iyo tan cusub ee wadamada reer galbeedka ka hana qaaday markii dambena ku baahday wadamadan kale caalamkaba horta buuggu waa buug aad u culus chapterada ugu horeeyana qoruhu wuxuu diraaseynayaa aragtiyii kala duwanaa ay falaasifadii Jarmalka ahayd sida Hegel iyo Max Weber iyo Karl Marx iyo ay ka qabeen dowladnimada mid kastaana aragtidiisa wuxuu ku beeneeyay naqdin aragtidii kii kale marka aragtiyo iska rabiyaacaya maaha laakiin waa aragtiyo isku jawaabaya midiba filosof kasta uu doonayo ka kale inuu ku dulbineeyo aragtidiidan cusub markuu qoruhu sooyaalka dowladda uu ka sheekeeyo chapterka 3aad mise ka 4aad ayuu kaga hadlayaa dowladdii soo jireenka ahayd ee ka hana qaaday dhulka islaamka dowladii ma ka hana qaaday markii diinta islaamku timid mise maya waa su'aal kale oo doodi ay ka taagan tahay oo waayo qorayaasha qaar waxay qabaan in dowladdii islaamku ay ka soo bilaabantay marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyay waxyiga dowladdii nabigay ugu tiriyaan dowladnimadii ugu horeysay ummadda islaamka qorayaal kale waxay qabaanba dowladdii nabigu ma ahayn dowladde oo waayo mafhuumkan dowladnimo amba mafhuumkan dowladda sida imika aynu naqaano muu ahayn wax ka dhex jira saxaabada iyo mujtamacii madiiniya mujtamacii makaba oo lasma weydiinayn nabigu ma madaxweynaha dowladdan aynu samaynayba mise maaha laakiin waxay ku tilmaamayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam kacdoon diineed waday oo bulsho bilaadiina ka dhex abuurmay nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu ahaa hogaamiyihii kacdoonka diineed laakiin dowladdu nabiga dabadii ay yeegleelantay oo khulafadii ay ugu
horreeyeen marka si kastaba ha ahaatee amba nebiga ha ka soo bilaabaan amba khulafadii ha ka soo bilaabantee cabdulla alcarawi markuu ka hadlayo dowladdii soo jireenka ahayd ee wadamada amba dhulka islaamka ka hana qaaday weliba dhulka carbeed amba jasiirad lamooda carbeed wuxuu soo xiganayaa aragtidii uu filasuufkii carbeed ee ibn khulduun uu ka diraaseeyey yagleelanka amba unkanka dowladdii carbeed ee hore wuxuu odhanayaa dowladda carbeed waxay ka abuurantay dowlad deegaan yacni waxaan uu ka wadaa dad reemiya oo meel iska degan saldanadoodii dhaqan ayay ka abuurantay dabeeto saddex lakab buu ka dhigayaa abuuranka dowladda caadiga inay noqoto dowlad seeskeegu yahay dowlad deegaan haddana markii dambe u gudubtaa dowlad siyaasadeed oo boqortooyooyin meeshii ay ka taliyaan haddana lakabka saddexaadna uu noqdo dowladdii khilaafada oo ah meesha ugu sarreysa ee hanaanka dowladeed amba maskaxda ummadda muslimkii markasta ka dhex guuxaya in la soo celiyo soo celinteedii iyo inay soo noqonayso lafteeda cabdulla carawi su-aal buu gelinayaa aragti gaaruu yaa makalayay marka ummadaha kaloo dhani saddexdaa marxaladood bay dowladnimadoodu ay martaa dowlad deegaan oo ka abuurantaa saldanadaha qabaa'ilka iyo sidii reeruhu u kala madegan yihiin waana wax primitive oo iska bidaa'i oo xilli hore ah marka wuxuu odhanayaa carabtu saddexdan marxaladood marxaladii dhexay ka soo booday yacni waxay ka bilaabantay dowladdii dabiiciga ahayd ee deegaanka ahayd ee maka ka jirtay ee daarunadwa iyo odayadii reer quraysh xayaatadii iska bidaa'iga ahayd ay iskaga noolaayeen markii nebiga uu ka soo dhex baxayna waxay isu bedeshay dowladdii nebiga ee markii dambena khilaafada noqotay marka marxaladan dhexe ah xukunkii siyaasadeed amba dowladdii siyaasadeed ee boqortooyooyinka soo jireenka ahaa iskuna ballaadhin jiray wadamada sidii tii beershiyaanka iyo tii reer mayuruba carabtu taa wey ma ka soo boodeen kasoo boodka waxaa caddaynaya fahanka reer quraysh mar ay dowladnimada ay ka haysteen wuxuu ku tilmaamaya markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma la soo saaray bandhigii nebiga ay soo bandhigeen ma xukun baad doonaysaa ma lacag baad doonaysaa ma boqortooyaan ma boqor baanu ku cumaamadnaa marka fahankooga dowladnimo waa fahan saa u kooban buu ahaa laakiin dee diinteena islaamka oo macaani amba fahan ka sarreeya amba ka meeqaam sarreeya fahankan ummaddii carbeed ay haysatay diin xambaarsan bay ay ahayd marka kasoo boodka marxaladda dhexe ayaa sababay uu odhanaya marka dambe waxyaalaha mufaaraqaadka in mar labaad ay ku noqoto marxaladdii ay maka soo booday oo dowladdii khilaafadu markay timid buu odhanaya cabdulla carawi muddo badan nasiib darro may sii hana qaadin oo marka lasku daro abubakar ilaa cali 30 sano ay ahayd taana waxaa keenaysa buu odhanayaa fiditaankii dowladdii khilaafada ay ku fiday bari iyo galbeed waxay dowladdii khilaafada soo galay ummado kale oo qalaad oo dhaqano kale oo ka qadiimsan dhaqankii carabta lahaa sida beershiyaanka iyo sidii dowladdii byzantiyiinta levant iyo sham iyo ka talin jiray marka waxaa dhacaya buu odhanayaa halkay ahayd in dhaqankan islaamka iyo dowladnimadan islaamku ay qolooyinka kale diinta kusoo biray ay kusoo dabaasho dhaqankan cusub carabta kusoo degay diinta islaamku ay ka kow tahay ayaa waxaa dhacay arrin cagsiya oo dhaqamadii beershiyaanka iyo reer yurubkii ayaa dowladdii islaamka ahayd ee curdinka ahayd jiitay dabeetna waxay noqotay dowladdii islaamka ahayd ee carbeed dowlad la midaba dowladihii beershiyaanka iyo reer mayurubka ahaa oo dhaqankoogii leh habmaamulkoogii leh hayrarkoogii leh oo boqortooyooyin layska dhaxlo oo xaq ilaahaya amba xagga sare ka imidoo reerkaasun uu dowladda haynayo kana bilaabantay dowladdii umowiyiinta ilaa cabaasiyiinta ilaa tii cusmaaniyiinta ugu dambeysayba noqotayna dee habdhaqan ummadda halkaa degan diinta islaamka sheegtaa ay lahaataba marka dhaqanadii la jaarka ah islaamka ayaa dowladdii islaamka jiitay wuxuu kale ku sheegayaa dowladdu si kasta ha u noqoto dowlad boqortooye ah oo laska dhaxlo oo baalmarsanba mabaadidii amba
amba waxyaalihii tirarkii ugu waaweynaadee maqaasidii diintu ay u taagneen haddana nimanka maqaasida ka soo horjeeda amba dowladoodu ay baal marsan tahay mar kasta diinta way adeegsanayeen oo mar kasta dowlad kasta diinta ha kaba fogaato amba ina kaba fogaanine cunsurkan diintu wuxuu ahaa gabaad buu ahaa markaa in la adeegsado marka ibn khulduun wuxuu keenayaa buu odhanayaa wax ayna isaga cidi uga horreyn marka wuxuu odhanayaa dowladdii carbeed waxay ka yeegleelantay isfalgal ka imid dhaqan carbeed dhaqankii islaamka iyo dhaqankii dadkii ummadda carbeed la jaarka ahaa markaa saddexdaa faktar amba saddexdaa qodob oo isla falgalay ayaa dhaliyey buu odhanayaa dowladdii carabta ahaydee soo jireenka ahayd uu soo dhaadhacayaayo wuxuu lafagurayaa xidhiidhkii u dhexeeyey hogaamiyaha amba xaakimka iyo ninka faqiiha wadaadka wuxuu odhanayaa wadaadada maskaxdooda mar kasta waxaa ka dhex guuxayay amba sawir qurux badan oo waxaa ka dhex guuxayay dowladdii khilaafada haddana markay qodobkaa quruxda badanne la soo daadejiyee la sidhaa bal la falgelsiiya wadcigan maanta jiree saxda ah laba fikradood amba laba sawiroo kala fog bay ahaayeen markaa sawirkii quruxda badnaa ee culimadeennu ay haysteen iyo wadcigan keligii talisnimada iyo dowladdan reerka ku kooban laga dhaxlay beershiyaankii laba isku qabanaya may ahayn mar kasta laakiin haddana waxay ka tanaasulayeen sawirkooga quruxda badan leh oo waxay u tanaasulayeen bal in si loo ilaaliyo wada jirkii nabadii xasiloonidii doctor shanqiita baa erayaroo aan ka hela idhaayo ah mar kasta oo mabaadi'da laga tanaasulaa oo looga tanaasulo nabadgelyada wada jirka wada noolaanshaha looga tanaasulay mabaadi'dii waaweyneed wax sii jiraya marnayba noqon maayo wuxuu noqonayaa markaa xal ku meel gaadha oo aan in badan sii tanaadin marka in aad mabaadi' waaweyn iyo maqaasidii ugu waaweyneyd ee xukunka ee shuurada iyo akhlaaqda iyo cadaaladda ay culimadii berigaa jirtay uga tanaasuleen weliba iyagoo dee maslaxadda ummadda ilaalinaya wada jirkii iyo nabadii iyo sinaantii inuu dhiigi daadan marlayba may noqon xal majaraha ku soo celiya waddadii laga leexday marka in mabaadi'da lagu dheganaadaa walow intan horeba culays badan iyo dhiig inuu daato ay macquul tahay laakiin marka dambe ummaddu waxay gaadhaysaa sees adag oo amba talis siyaasadeed adag oo muddo badan jira marka culimadii saddex bay ay u qaybsameen qolo xaakimkii raacda iyo qolo ku mucaarida iyo qolo dhexe oo siyaasadiiba ka baxdayoo cilmigeega iyo masaajidaduna iskaga jirtay bay ahaayeen imaam alghazali baa odhanaya haddii systemkan amba taliskan siyaasadeed ee iminka amba kiyo qaldan xataa taliskii siyaasadeed ee qaldanaa haddii meesha aynu ka saarno wax kale oo lagu bedelanayo alternative ma jiro marka in sawirkii quruxda badnaa ee khilaafada la soo celiyaa ayaa waxa uga fududaaday in wadcigan maanta lagu jira aan saxda ahayn ay ogolaadaan dabeeto wuxuu odhanayaa sawirkaa quruxda badan in culimadu ay ka sheekayso oo tiraa khilaafadaa saxaho in diinta la dabaqaa saxaho in maqaasidiinta diinta uu xaakimku dabaqo ayaa lagama maarmaana marlayba kumay ninka xaakimkii dhib kumuu qabin oo marka ay shuruudan akhriyayaan waa shuruud ay ku xidhan tahay shuruud una qof hadda jooga una buuxin karayn markuu dhegeysto ninka xaakimkii wuxuu odhanayaa wallaahi waa sax waxa aad sheegaysaan oo dhan laakiin waxaynuu taaganahay laakiin iminka ma xaqiiqoobayso kol haddaan la xaqiijin karaynaa waxa iminka aynu haysano inaynu iska haysanuunbaa fiican marka marlayba wuxuu ka xajiimoodo may ahayn inay ka sheekeeyaan khilaafo inay ka sheekeeyaan sinaan wuxuu xaakimku ka xajiimoodo amba uu diido may ahayn mar haddiiba ay khilaafadu ay tahay tabtu cabdalla carawi qabo wax duwaawaya amba wax sawir qurux badan oo aan la gaari karin oo markii horena ku imid mucjiso rabbaaniya mala awaal wanaagsan oo qurux badan oo markii horena ku imid mucjiso rabbaaniya faragashi rabbi oo risaaladii dee nebiga kusoo madejiyaya markii dambena ay hana qaad amba ay majaraha ay u qabteen dadkii nebiga uu tarbiyadeeyey isla markii dadkaasina ay meesha ay kasii baxayeen wixii quruxda badnaa uu baaba'ay
markaa su-aal buu haddana isweydiinayaayo wuxuu odhanaya waxaa jiri kartaba su-aal ah maadaama aan ibnu khulduun kaasun hayo ina dadku badan ay isweydiiyaan ma mufakir keliya iyo faylasuuf keliya ayaa aynu adeegsanaa fasiraadda sooyaalkeena siyaasadeed ee hore o dhan waa su-aal laisweydiin karo dabeete markaas odhanaya su-aashaasi su-aal laisweydiiye maaha marka la eego agabku ibnu khulduun adeegsaday siduu uga hadliyo dhacdooyinkii taariikheed marka taxliilkan uu ibnu khulduun uu keenay wuxuu u adeegsaday ka hadlinta dhacdooyinkii taariikheed ee ummadda islaamka ma ku dhacay ka hadlintaa uu adeegsadayna wuxuu isagu iskala imid maaha waa wuxuu dhammaan ku waafaqay sooyaalyahanadii ummadda muslimiinka ee diraaseeyey taariikhdii siyaasadeed ama sooyaalkii siyaasadeed ay ummaddu lahayd sooyaalkaas siyaasadeedu uu odhanayana wuxuu bilaabmay in la qoro qarnigii labaad yacni markaa qoridda sooyaalka siyaasadeed ummadda islaamku lamay bilaamin yagleelitaanka dowladda waa qarnigii labaad bay ahayd mar ay dowladdii umowiyiintu ay dhacday marka 200 sano ayaan waxba malaga qorin amba dhacdooyinkii taariikheed ee dadkii ay noolaayeen ayna waxba ka qorin halkaana gaab weyn ayaa jiray wuxuu chapterka shanaad ku sheegayaa tiyo dowladdii ay sidaa tahay wadada qalloocneed ay soo martay ayaa qarnigii 16aad ayaa dowladdii deegalka islaamka ka jirtay markay aragtay gacan sarreyntii ninkii cadaanka ayaa waxay xaqiiqsatay in uu isbedel lagama maarmaan yahay dabeete isbedelkii waa lagu kala qaybsamo odhanayaayo ninka xaakimkiina isbedel wuxuu doonayay ciidankiisa uu dib u cusboonaysiiyo awoodda ciidanka kor loo qaado awoodda dhaqaale dowladda kor loo qaado waxyaalaha isbedelka uu sameynayaana marka u dambaysa waxay sii joogteynayaan joogitaankiisa isaga iyo awooddiisa ay sii kobcineed marka isbedelka ninka xaakimku markasta uu doonayay markuu awooddii ninka cadaanka arkay waxay ahayd mid isaga u dana halka shacabkii isbedelka uu doonayay ay tahay mid ay dib ay ugu hantaan xurriyadoodii iyo dimuqraadiyadoodii iyo go'aankoogii oo ninkani uu ka kow yahay in meesha ma laga qaado oo waayo dhibaatada ugu weyn waxa weeye ninkan sida qaldan meesha ku imid ninkan dawladdii u adeegsanaya agab si hanti aabihii iyo reerkooga ay leeyihiin ninkan hantidii ku tasarufaya ummadda dhan si isagu wuxuu leeyahay hanti gaar uu leeyahay marka isbedelkii la doonayay isbedelkii labada dhinac ahaa dhinacii xaakimka iyo xukuumaddii iyo dhinacii shacabkii labadooduba laba wado oo iska soo kala horjeeda amba laba fikir oo aan isku imanayn ay isbedelka ay ka aaminsanaayeen taasina waa tan keentay inuu isbedelkii uu dhicisoobo uuna hana qaadin isbedelkaasoo ay doonayeen amba la doonayay in dowladdii muslimka ahayd fadhiidka ahayd lagu horumariyo oo laga dhigo dowlad moderna dowladda modernkiina sidaynu wada ognahay dee asalkeedu waa reer Yurub amba aynu diidno amba aynu waafaqnay asalka dowladdan modernka ee cid kasta maanta haysato waa wax inaga yimid Yurub dowlad waliba dee kacaankii Faransiisku uu ka kowha iyo Napoleon dowlad shaqaale leh wasaarada leh shaqaaluhu ay ka go'an yihiin xaakimka ciidan professional oo u shaqeeyay dawladda oo shaqadiisu ay tahay in mar walba dawladdii hore dee shaqaaluhu waxay u ahaayeen raciyadii xaakimka laakiin shaqaale professional oo bureaucracy caadi ah oo dawladda u shaqeeya mushaar gaar ku shaqeeya cidii isbedeltaaba ha isbedelaane marka gunaanadka ayuu ku soo gunaanadaya haddaan soo gunaanado wuxuu Cabdalla Al-Carawi qabaa in sawirka mala awaalka quruxda badan ee khilaafadii una ahayn wax xaqiiqoobaya amba si kale haddaan u dhigo dawlad khilaafa islaamka amba islaamiyo ummadda muslimiintu ay sheegtaan amba caqligooda ka dhex guuxaysa amba laynagu soo tarbiyadeeyey oo iskuulinkeenii iyo diinteennuna ay sheegayso inay ummadda muslimiintu lagama maarmaan tahay marka u dambaysa inay dawlad mida ay helaan Cabdalla Carawi wuxuu qabaa inayna wax dhacaysa ayna ahayn waana arrin aynu kaga soo horjeedi karno amba lagu waafaqi karo laakiin dooda qoruhu waxay tahay inuuna dawlad khilaafi ayna dhacayn waana amba ayna suurtagal ahayn in duruufta maanta aynu ku jirno inay yagleelanto taasina dee waa wax qoraha u gaara marka intaasan kusoo koobi lahaa aad iyo aad waad mahadsan tahay liban dabcan si quruxda umaad u falanqaysay waxa weeye muxuu ahaa dowladda soo jireenkay ka muxuu ahaa dhulka carbeed isiiba
iyo isagoo ku dabaqaya bulshada ku xeernayd iyo marxalada kala duwan ee soo martay iyo waxyaabihii ka khaldanaa uu qoraagu uu aad ugu lafagurayo intaynaan ka bixin aanan mawduuc kale u leexan qoraagu aad moodaa inuu ka yar hadlayo farqiga u dhexeeya dowladda diimeed iyo dowladda rayidka ah marka dowladda diimeed iyo dowladda rayidka waxaad moodaa haddaynu yar kala qaadno inaynu ku macnayn karno dowladda matalan rayidka ah ama civil stateka in lagu macnayn karo ay tahay dowlad doorasho ku timaada oo waxa weeye ay dadku leeyihiin xaqa doorashada dowladdii xeerka oo ilaalinaysa waxa weeye qaanuunka guud iyo dastuurka iyo waxa bulshada ay u xeerkaa dowlad cadaalad ku dhisan dowlad sinaan ku dhisan dowlad u shaqaynaysa muwaadiniinteeda u shaqaynaysa waa dowlad markaa aan iyadu u kala saaraynin ama aan u kala fuquuqaynin muxuu ahaa ideolojiyad iyo fikrad iyo isirtoona laakiin waa bulsho dhammaan muwaadiniinteedu cadaalad iyo sinaan iyo waxa weeye muxuu ahaa ugu adeegaysa dhinaca kalena oo dowlad ku imanaysa iyadu waxa weeye maxay doorashada bulshada ama dhinaca rayidka halka ay dowladda diimeed aad moodo inuu ku macnaynayo nooc doonta ha noqoto marka dowladda diimeed dowlad u adeegsanaysa magaca ilaahay inay ku maamusho ummadda wuxuu leeyahay waxa way noqon kartaa dowlad amar kasta oo ay helayso u sababeynaysa inuu ka yimiday xagga ilaahay sharciga dejinaysa inuu ka yimiday xagga ilaahay waxay dowladdu xalaalaysaa oo wax marka horeba muxuu ahaa ilaahay soo xalaaleeyay waxa dowladdu xaaraantinimaysaana waa wax marka horeba muxuu ahaa dowladdu hore xaaraan u ahaa saa daraaddeed daacadeeda iyo in la adeecaana ay waxa weeye waajibtahay marka waxay yidhahdaan secrecy state ama dowladda muxuu ahaa dowlad diimeed dowladda islaamiga ma noqon kartaa dowlad diimeed oo nooca u foolxun weeye su-aasha haddaba haddaynu dhinac kale ka eegno weligeed taariikhda islaamka marka la eego dowlad diimeed oo noocana xataa nebi maxamed sal slam dowlad diiniya ama dowlad diimeed may ahayn waxay ahayd dowlad rayida laakiin marjiciya islaamiya marka mar kasta oo waxa weeye waayo waxaa la leeyahay qofka xaakimka ahi waa bashar wuu khaldami karaa wuu saxsanaan karaa xilkaa loo dhiibi karaa waa laga qaadi karaa waa loola xisaabtami karaa dhammaantood waxay sheegayaan dowladda rayidnimo laakiin qofka marjiciyada uu ku maamulaya iyo marjiciyadiisu inay diinta islaamka tahay taasi marka waxa la odhanaya waxa weeye waa dowlad rayida laakiin leh mustabeed islaamiya un leh mar kasta waxa weeye taariikhda dowladaha diinigana ma waaraan bulshadana waxay ku hayaan muxuu ahaa caburin iyo xorriyad su-aasha isweydiin karaa waxa weeye innaga bulshada muslimiinta ah maxaa ka khaldan maxaa ma waxay tahay in dowlad diimeed la raadiyo mise dowlad rayida waxa u baahan in laysku noqo islaamiyiintu guud ahaan oo ay ka fikiraan war waxaynu u baahanahay dowlad rayida laakiin inagu ay islaamiyiin aynu wax iska saxno marjiciyaduna ay tahay inagu noqoto marjiciya islaamiya dowladdeenu ay ku timaado ilaa waxa weeye dadku waxay dooranayaan ka dooranaya marka xaq buu leeyahay adig iyo hebel oo tartamaya inaad si siman u timaadaan marka iyagay saaran tahay qolyaha siyaasiyiinta muslimiinta ah ama magaca islaamiga ah ku tartamaya inay bulshada marka hore fikirkan ay muxuu ahaa wadaan ay ka dhaadhiciyaan isla markaana ay u dhaqmaan dowlad rayida oo lana xisaabtami karo lana la qaadi karo lana la dooran karo haddii kale waxay noqonaysaa uun taa xagga sare ka timaada ee layma taaban karo waana inta badan burburka u keenayay dee waxa weye muxuu dowladihii suldaanada iyo maamulku ay sare ku dhegayeen sidoo kale haddii intaan kusoo noqon muxuu ahaa libani guuleed gabagabada waxaa la yidhahaa guuleed wuxuu kasoo warramay xooga saaray unkankii dowladnimada lafta ee guud ahaan laakiin dowlade markay ay halan qaado waxaa la yidhaha 4 marxaladood ama 3 marxaladood ayay waxa weeye martaa waxaa la yidhahdaa waxa weeye waa marxaladda marxaladda caruurnimo ee dowladdaasi waa marxaladda ay kobcayso waa marxaladda waxa weeye muxuu ahaa ay bilaabmayso uun waxa weeye unkanka dowladnimo aan yaro xusee weliba maraaxisha kala duwan ee dowlad kastaa martaa ma laha zaman xilli mucayana ma laha qaarba gebiguba ku qaataa 4 sano in marxalad caruurnimo iyo marxalad dhalinyaro marxalad gabow iyo marxalad in waxa weeye ay dowladdaasi haddii noqoto mid fadhida qaarba 4 sano ku qaata qaarba 400 sano ku qaata inay qaarba 500 sano ku qaata inay soo maraan muxuu ahaa kobaca dowladuhu ama dowladda lafteedu ay soo marto marka haddaan ku noqdo marxaladda caruurnimo waa marxaladda keenaysa marka in ay dowladdu ay imika bilaabanto waxay iska ilaalinaysaa waxa weeye inay dagaalo muxuu ahaa ay la gasho jaarka waxay ku dadaalaysaa inay nabad kula noolaato waxay ku dadaalaysaa waxa weeye in ay gudaha ay xoogga saarto ay dhisto muxuu ahaa siyaasadda gudaha iyo midnimada ay ka shaqayso
waxaa la yidhaha talabaadna waa marxaladda waxa weeye ay dhalinyaronimada dowladda ku jirto marxaladdan dowladdu waxa weeye sida qofka dhalinyartiba uu ugu jiro marxalad awood leh oo ismuujina ayay dowladdu ku jirtaa mar walba inay muujiso awooddeeda waxay ku dadaalaysaa inay siyaasadda arrimaha dibadda wax ka bedesho in mararka qaar ku dagaalo jaarka ay gasho muxuu ahaa dhulballaarsi xataa muxuu ahaa ay gasho marka ay marxaladda kasoo gudubto waa marxaladda ay odhan karno waxa weeye qofkii haddeed wuxuu noqday qaangaadh waa marxaladda markaa ay ugu mudan tahay dowlad kasta markay taagan tahay waa marxaladda ay ugu qurux badantay waa marxaladda dowladdu ku dadaalaysa inay adeegayga wada gaadhsiiso bulshada waa marxaladda inta badan ciidanka iyo qalabka ay haysato u adeegsatay inay isku difaacdo uun laakiin aan daandaansi dibadeed muxuu ahaa aan ku dareenin waa marxaladda ay ku dadaalayso dowladdu in waxyaabaha ay haysato ee khayraadka haysato ay uga wada faa'iidaysato waxa weye muxuu ahaa gaarsiinta bulshada rayidka ah ee ay iyadu maamulayso marxaladda ugu dambeysa waa marxaladda gabowga dowladdaasi waa marxaladdii dumitaanka ay dowladdaasi waxa weye muxuu ahaa dulaysa waa marka ay isbedesho siyaasadihii ay ka lahayd adeega bixinta adeegyada gudaha siyaasaddii wadamada jaarka waxa weeye waa marka ay ku bataan faragelinta wadamada jaarki ay kusii bataan si ay wax uga bedelaan xataa siyaasadahiga gudaha marka ay dowladdu ay marxaladaha ama tilmaamaha noocaas yeelatana waxaa la yidhaha waa marka ay muxuu ahaa ay soo dumayso ay ka baxayso waxa weeye meeshaas dabcan haddii soo qaadano tusaale fara badan baa laga yaabaa in mid walba loo heli karo dunida maanta marxaladda dowladda Soomaaliyeed guud ahaan haddana dib u eegto dee taariikhdeena 1960 ilaa hadda dowladnimada ka hana qaaday bulshadeena Soomaaliyeed dhexdeeda waad garan kartaa marxaladda ay ku jirto in mise dowladoodba xataa isbedelay baa la odhan karaa oo 4 marxaladoodba maray marka waa su'aal u baahan in dib loo eego marxalad kasta iyo waxyaabaha ku wanaagsan tahay iyo waxyaabaha lagaga taxadari karo inay mar ay ku dhacdo inay ka talaabsato mar kaliya ama waqtigeeguba waxa weeye muxuu ahaa u soo gaabto inaan ka bixin gutiga gabagabadii inagoo eegaynaa kitaabkan fahanka dowladnimo intaynaan gutiga gabagabadii gaadhin inagoo eegayna bal kitaabka aynu akhrinay maanta ee Cabdalla Carawi ee uu kaga warramayo fahanka dowladnimo talow liibanow sidee u arkaysaa adoo kitaabkiina saa u akhriyey dowladnimada ummadda Soomaaliyeedna sidaa u eegay halkay wax iska dhaafsan yihiin baad oran lahayd waad mahadsantahay Aftax horta fahanka dowladnimo Soomaalida guud ahaan meel kasta ha joogaan waa fahan qaloocan weeye amba waa fahan aan korin amba aan kobcin koboc la'aanta fahanka dowladnimo Soomaalida guud ahaan waxa sababay bay ila tahay aniga dhowr qodob qodobka koowaad oo Soomaalida oo iska dad reeguuraya qofka reeguuraagina badana kuma guuleysto inuu yagleelo amba uu dhiso amba uu isugu yimaado magaalooyin kala duwan haddii dadku ay magaalooyin ay isugu iman waayaan amba ay ku guuleysan waayaan inay magaalooyin waaweyn ay samaystaana arrimaha iyo masaalixda iyo danaha ka dhaxeeya ayaa noqonayn dana badan marka kol haddii danaha inaga dhaxeeyaaba ayna ahayn dana sidaa u badan baahi keensanaysa ma jirto dee inaynu samaysano talis siyaasadeed oo inaga dhaxeeya oo inaga isqabadkeena iyo waxyaalihii ina soo kala dhexgeli lahaa ina kala gura taasaa keentay in Soomaalidu dad soo jireena oo kumaakum sano degalkan deganaa ayna yagleelin dowlado amba boqortooyin ha noqdaan amba dowlado kale oo siyaasadeed halka dadka jaarka ay yihiin sida xabashida kale ay leeyihiin boqortooyo caan oo ilaa ka talisayba jasiiradlamooda Carbeed marka reeminimadu waa sabab kale jiri karto markii gumeystihii uu inoo yimid saamaynta dowladnimadii gumeystuhu uu inoo keenay oo inagu mayareyd aad wadamada Afrikaanka oo kale amba wadamada Carbeed amba wadamadan kale la gumeystayba dowladda imika ka jirta wadamadaasi waa dowladii gumeystuhu uu ka tagay weeye marka gumeystuhu wadamada faragelin toosa ayuu ku lahaa dhaqaalahooga systemkooga garsoor systemkooga ciidan systemkooga caafimaad systemkooga tacliin حتى مركو يا ما كتجي فرجلين تاسميد طبعا بقى ها نقطه لكن وامد ساس أقول لك تي وح لا تعاون كرو
haba qaldanaaday laakiin waa wax la taaban karo oo sees dowladnimo oo hadhow ma la sixi karo inagu Soomaali haddaynu nahay gumaystayaashii kala duwanaa dadka Soomaalida gumaystay badankoodu systemka dowladeed sidaa u kala baxsan waliba haddaynu nahay Somaliland oo kale Ingiriisku de Somaliland wuxuu ka joogay xeebaha gudaha wuxuu soo galay dabayaaqadii Sodoomaadkii iyo Hargeysa aagan yimid marka gacan ku hayn toosa lamu lahayn bulshada kala duwan ee Somaliland ayaa degan taasaa keentay inaan institutionskii dowladnimo ayna noqon mid aad u hana qaata dadkii reer guuraagahaana ayna qalad faham badan uu ka galaba systemka dowladeed iyo sidoo uu shaqeeyo qodob saddexaad baan raacin lahayo markii la xoroobay lana yeegleelay dowladii midowga aqoonyahanka Soomaalidu doodo badan may dhex mareen oo ay kaga doodayaan fahankan dowladeed amba dowlad nooc ma aynu doonayna amba isku meydayinba in bulshada Soomaalida kala duwanba la gaarsiiyo fahankan dowladnimada amba mabay ahaynba wax dhexdoodaba ka taaganba marka taasina waxay keentay inaan dadkii aqoonyahanka ku magacaawna inaan dhexdooda doodo badan oo arrintan muhiimka ah lagaga doodaya ayna jirin dowladii midnimada markii ma yagleelay nasiib darro waxa dhacday inayna chance badan ba helin in iyada lafteedii ay sii jirtaba oo waa kii inqilaabka dhacay marka hanaankii dimuqraadiyadeed oo meesha ka maqnaa taasina gurac badan bay u keentay hanaqaadka dowladda Soomaalidu markii dambe waa kii burburkii yimid oo Soomaalida ay kala biiqbiiqdayba marka dhacdooyinka iyo mushkilaadka fara badan ee Soomaalida ku dhacay ayaa keenay inayna system dowladnimo oo rasmi una Soomaalida dhexdeeda maka hana qaadin haddana fahanka dowladnimo qalad fahan weyni oo wali Soomaalidii kaga ma jiro oo dowladii oo dhanba ay inaga soo koobnaatayba wax la kala dhacayo oo la kala riixanayo dabeeto marka la gaadhana dad gaar u shaqeynayso oo cid gaar u shaqeynayso oo cid gaar ay sheeganayso wixii marka taas ayaa keenaysa inaan systemkan dowladeed una noqon mid xasiloon Soomaalida dhexdeeda guuleed maxaad ku dari lahayd waad maasantahay aftax libaanada si fiican buu sharaxayo waxa weeyaan dee uu kala dhigay runtii taa waxaan ku dar lahaa kaliya horta kolleyba de sidaa uu libaan sheegay waxa weeyaan dowlad dad soo jireenay nahay oo waxa weeyaan dee waqtiyo badan soo noolaa dee sida taariikhda Soomaalidu ay dhigayso haddana aan wax dowlad iyo waxa weeyaan xukun siyaasadeed oo midaysan aan yeelan sababtuna waxa weeyaan dee dadka Soomaalida reer guuraa dee u badnaa iyo baadiye deganaa oo dana badan oo dee xidhiidhiya ama isku keenaabaanay jirin taas waa mid qodob aad u muhiim ah waayo dowladda dee waxa sameeya dad dan leh sida markii hore sheegnay maanta Itoobiya waad arkaysaa waa dad deegaan oo beeraley oo xaqota yani taas waxay keenaysaa dadkii ay deegaan yihiin dabeetana waxa weeyaan ay wax wada samaysanayaan Masar bay ka muuqataa 7,000 sano dowladda ka soo jirtay sababtuna waxa weeyaan waa dad deegaan oo beeraley talabaad imika jirta waxa weeyaan maanta Soomaaliya markay dowladda burburtay kaba soo qaad ilaa iyo 12 sano ay marayso in la leeyahay dowladda central oo xoogan oo dadka Soomaaliyeed isku keenta guud ahaan haddaan guud ahaan u hadlo xataa meelaha kale ee dowladdu ka dhaceen mesela Somaliland oo kale laftigeeda dowladdii waxa weeyaan malaamixdeedii iyo astaamaheedii ma muuqdaan runtii taasi waxay qofka Soomaaliga ay fahankiisa si adkaysayba oo meesha ka saartay baahida dowlad loo qabo qofkii Soomaaliga waxa aaminsan yahayba oo anigu inagu wax cusub ay sameynaybo waxay noolnahayba waxa weeyaan 20 sano wax ka badan ay noolnahayba waxa weeyaan dowlad noolaan karaa dowlad la'aan waxa weeyaan dee waa noloshaada wad wadanaysa mid baan kalaan ku daray isbedeshay aqliyadii iyo psychology qofka Soomaaliga isbedeshay طبعا baahida dowladda u qabay ayaaba way si adkaysay marka horeba dowladna ma inaan lahayn oo de fikriyeeda ma inaan hayn baahin ay naga maqan tahay waxna de waa meeshay ku sii adkaysay runtii waxa jira sidoo libaan sheegay markii tole de isbedeladii iyo wanaagyadii iyo wax ka qabadkii dowladaha de markii uu isticmaalku yimid la sameeyay hadafkoodu waa hadaf sax ah oo de
oo wanaag uu ka dambeeyo sida dee uu sheegay liibaan oo kale waxa weeyaan hadafka islaaxaasi wuxuu ahaa kow ninka xaakimkaas sibuu u arkayey oo ninka dee suldada haysta sibuu arkayey shacabkuna sibuu u arkayeen ninka xaakimka wuxuu arkayey inay uu xoogeeyo maamulkiisa oo ballaariyana iyaguna waxay arkayeen in ay ka takhalusaanba dee waxa weeyaan caburinta iyo istibdaadka uu ku haya ninkani labadoodii way isweydaarsayin ha isweydaarsadana isweydaarkaas oo jira haddana barnaamijka uu keenay maxay ahayday isticmaalku ee ahaa masalan barnaamijka dib u habeynta waxaa ka mid ahaa masalan in innaga naga muuqan runtii Soomaali ahaan laakiin dadka kale dee isticmaalka la dhaqmay ama dawladda uga tegay ay ka muuqatay waxaa ka mid ah inuu ciidanku tababaray waxaa ka mid ah inuu abuuray shabakad ama sees hoose oo muwaadiniin iyo shaqaale xoogan waxaa ka mid ah in loo sameeyay qawaaniin waxaa ka mid ah in manhajtii ay looga tegay oo waxa weeyaan manhaj aqooneed looga tago loo sameeyay waxa weeyaan xataa looga tegay waxay ku sii wadan karaan hadhow markuu ka baxo waxna ka bedeli karaan hadii doonaan طبعا laakiin inaga dee kuwaasina waxay xoogeynayaan dee waxa weeyaan astaamaha dawladeed qof dadkaasi ay hadhow wax ku sii qabsan karaan inagana waxaasoo dhan waxa ka muuqda oo in yaroo cadaalad waxaan filayaa in yaroo cadaaladda ah oo maxaakiimta inuu inooga tegay wax kale oo inooga muuqda ma jirto marka taasaan ku dar lahaa waxaanad arki kartaa waxaynu isku tusaale aad isku dhownahay dowladda South Sudan iyadu waa dowlad masiixiya oo waxa weeyaan in badan oo dhex galay laakiin waxba looma qaban runtii haddaad aragto koonfurta Sudan waxa weeyaan dawaadi arkay sanad bay ku kuftay adaba joogi jiro nooga horan ku leeyahay ha waa wada sanad bay ku kuftay kawaadir iyo afartii shan ba sheegay sanad bay ku martay sanad bay ku koreen bay ku dhaceen aad iyo aad wanaagsan tahay guuleed cabdi maxamed injineer sida fiican aad soo koobtay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa liibaan maxamed ciise oo isaguna falanqaynta ku jiray mar kasta iyo meel kasta oo aad joogtaanba waxaan leenahay waad mahadsantihiin dhammaan daawadayaal iyo saaxiibayaal dabcan markaas waxaan idinka codsanaynaa inaad wixii talo iyo tusaale aad noogu soo gudbisaan barta Facebook aanu ku leenahay oo dabcan ka soo daahiri doonta xaggan hoose iyo YouTube channelka iyada lafteeduna hadda xaggan ka soo muuqan doonta inta ma gaajaysan yahay guuli waaweli dhammaantayo waxaan idinkaga teganaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo amaana Allah